bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan halkani waa xogbaahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo natiijada kulamadii shalay la ciyaaray Euro 2021 America iyo kuwa maanta la ciyaari doono fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalkana like inoo dheh mahadsanid inta aynu u gudbin barnaamijkeena waxaan ku cudur daaranaynaa muddadii ugu dambeysay oo aynu soo gelin wax video ah ciladii jira awgeed balse wixii maanta ka dambeeya barnaamijyadeena ayaa inooga soo socon doona halkooda aynu ku bilaabnay shalay ayaa la ciyaaray 2 kulan oo ka tirsan Euro 2020 kulankii hore ayaa dhaxmaray xulalka Switzerland iyo Spain ciyaarta ayaa ku soo gabagabowday gool waxaana la isku la aaday rigoor waxaana ugu dambeyntii 3 gool ay goosha ku dhacday xulka wadankaasi Spain ciyaartii labaad oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa dhaxmartay xulalka Belgium iyo Talyaaniga waxaana ciyaarta ay ku soo gabagabowday 2 gool oo ay goosha ku dhacday xulka wadankaasi Talyaaniga maanta ayaa la ciyaari doonaa sidoo kale 2 kulan xulalka Czech Republic iyo Denmark ay ciyaari doona ciyaarta ugu horeysa ee maanta caawa 7 habeenimo halka kulanka labaad oo xiiso badan uu dhaxmari doono xulalka Ukraine iyo England oo ay soo gali doonto caawa 10 habeenimo sidoo kale xalay ayaa la ciyaaray 2 kulan oo ka tirsan Copa America xulka Peru ayaa la ciyaaray Paraguay waxaana ciyaartoodu ku soo gabagabowday 3 waxaana ciyaarta la isla aaday rigooro oo ay ugu dambeyntii 4 ay goosha ku raacday xulka wadankaasi Peru xulka Brazil ayaa ciyaar aad u adag la ciyaaray Chile waxaana ciyaarta ku soo gabagabowday gool iyo waxba oo ay goosha ku raacday xulka wadankaasi Brazil markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa xiriir la sameysay kooxda Barcelona iyaga oo doonaya saxiixa qadka dhexe ee xulka Brazil Filipe Coutinho imaanshaha tababare Rafael Benitez ee kooxda Real Madrid ayaa isbuucan gudihiisa la xaqiijiyay waxaana tababaraha reer Spain uu ka dalbaday maamulka naadiga in kooxda la keeno Coutinho ayaa 2018 ugu biiray Barcelona lacag ka badan 100 milyan oo euro balse waxa uu noqday mid naadiga ay amaah iskaga dirto markii uu ka soo muuqan waayay kooxda Coutinho ayaa hal sano amaha ku qaatay Bayern Munich halka uu kula soo guuleystay Champions League kooxda Barcelona ayaa diyaar u ah in xidigii hore ee Liverpool ay iska fasaxdo waxaana laacibka reer Brazil uu soo dhaweynayaa fursad walba uu ugu laaban karo horyaalka Premier League dhinaca kale kadib bixitaankii laacibkoodii qadka dhexe ee Hakan Calhanoglu kooxda AC Milan ayaa haatan raadinaysa bedelka xidigeedii waxaana ay calaamadeysatay xidiga kooxda Ajax ee Dusan Tadic sida ay qortay Sky Sport Italia Tadic ayaa soo dhaweynaya ka mid noqoshada AC Milan balse kooxda Rossoneri ayaa howl badan sugaysa maadaama xidigan uu heshiiskiisu ku egyahay 2023 waxaana la hubin in Ajax ay diyaar u tahay in ay hibiso kabtankeeda kooxda AC Milan ayaa raadinaysa xidigo leh khibradda Champions League maadaama ay sanadka dambe ka qayb gali doonaan tartanka Europe muddo 7 sano kadib dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa korodhay rajadii ay ka lahayd saxiixa daafaca kooxda Real Madrid iyo xulka Rafael Varane shalay ay ahayd markii jariiradaha AS iyo Marca ay daabaceen in xidigan uu go'aansaday ka hayaamida Bernabeu isla markaana maamulka kooxda ay u fasaxeen inuu la hadli karo kooxdii uu doonayo xalay ayaa waxa warkani si faahfaahsan u shaaciyay khabiirka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee Fabrizio Romano waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda reer England ee Manchester United ay xiriir durbaba la sameysay Real Madrid warkan ayaa ah mid u wanaagsan dhagaha taageerayaasha shahaadiinta casacas balse dhibka ugu weyn ee heshiiska ayaa ah lacagta lagu la wareegay xidigani Manchester United ayaa ogol inay bixiso 38 milyan oo pound halka Real Madrid ay doonayso 60 milyan oo pound heshiiska xidigan ayaa waxa ka harsan kaliya hal sano waana sababta Manchester United ay uga baaqsanayso lacagaha ay Real Madrid dalbanayso kooxda reer Jarmal ee RB Leipzig ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa weeraryahanka kooxda Eintracht Frankfurt iyo xulka Portugal Andre Silva 25 jirkan ayaa 28 gool u dhaliyay kooxdiisa 32 kulan oo u saftay xil ciyaareedkii dhamaaday waxaana laacibkan lala xiriirinayay horyaalka Premier League inuu u wareegi doono kooxda RB Leipzig oo kaalinta labaad ku dhameysatay horyaalka Jarmalka xil ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa u muuqata kuwa isu diyaarinaya dagaal adag oo ay la galaan macalinkoodii hore ee Julian Nagelsmann oo hogaamin doona Bayern Munich xil ciyaareedka dambe
kooxaha Arsenal iyo Liverpool ayaa bilowgii suuqa la xiriirinayay weeraryahankan balse laacibka ayaa go'aansaday inuu ku sii nagaado Bundesliga Jarmalka. dhinaca kalena xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay in isbedel lagu sameeyay qaabka loo ciyaaray horyaalka Serie A xil ciyaareedkii nagu soo aadan ee 2021-2022 ayaa bilow u noqon doona naqshada cusub ee horyaalka Talyaaniga waxaana isbedelka lagu sameeyay horyaalka maanta si rasmi ah loogu soo bandhigay website-ka xiriirka. horyaalka Talyaaniga ayaa markii hore kooxaha isku arki jireen si isku mid ah oo isu xiga tusaale wareegga hore ee xil ciyaareedka kooxaha ugu dambeeya ee isla ciyaara ayaa wareegga labaad mar kale isku arki jiray oo bilaabi jiray balse haatan waxaa loo ciyaari doonaa si isku milan iyadoo labada kulan ee kooxaha dhexmaraya u dhaxeyn doonaan ugu yaraan ilaa iyo 8 ciyaarood. ugu dambeyntii kooxda Olympique Marseille ayaa ku dhow in ay laba xidig ka soo qaadatay naadiga Arsenal isbuucan gudihiisa. xidigaha reer France ee William Saliba iyo Matteo Guendouzi ayaa doortay in xil ciyaareedka dambe ay ku qaataan kooxda Marseille waxaana naadiga Arsenal ay haatan wada hadallo kula jirtaa maamulka kooxda reer France. Guendouzi ayay u badan tahay inuu si toos ah ugu biiro Marseille maadaama ay isku dhaceen tababare Mikel Arteta halka daafaca da'da yar ee Saliba uusan weli ku guuleysan inuu qanciyo tababare Arteta ka oo doonaya in xidigan uu xagaa dhameystiran ciyaaro si uu ugu mid dhigo kooxdiisa. barnaamijkeeni galabtana waa inaga inta